walaalkayga muslimka ahow iyo walaashayda muslimadda aheedow ma doonaysaan in rabbi subxaanahu watacaala idin jeclaado sidoo kale dadko dhan idin jeclaadaan taasi waxay ku xiran tahay laba shay inaad iska dhaaftid bes midda koowaad waxay tahay izhad fi dunyaa yuxibaka allah adduunyada ka haajir iska dhaaf ilaah baa ku jeclaanaya subxaanahu watacaala wazhad fii maa cinda annaas yuxibaka annaas iska dhaaf dadka waxay haystaan oo agtooda ahaaday ee waxa weydiisinin yuxibaka annaas dadkan way ku jeclaan waa xaqiiqo ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku caroonayaa adduunyada haddaad isku dhajisid oo jeclaatid oo cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala ka tagtid oo u haajirtid adduunyada ilaah baa ku caroonaya subxaanahu watacaala sidoo kale dadka xaggooda dadka haddaad wax weydiisatid inta badan qof su-aashid wax weydiisid way ku nacayaa isagana sidoo kale marka biniaadanka ma jeclo in wax la weydiiyo laakiin rabbi subxaanahu watacaala wuxuu jecelayaa mar walba inaad wax weydiisatid kadaalika ixris calaa maa yanfacuk waxyaabaha ku anfaca adduunya iyo aakhir ku dadaal wastacin billaahi ilaahayna kaalmayso walaa tacjis hana caajisin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa saaxiibkiina siimaatee